burco muxuu yahay bahalka halista badan ee shacabka reer burco ka qayliyeen ee habeen socod caways iyo leydhsiba u diiday mase og tahay waqtigii uu socday dagaalkii gooja cadde in ciidanka qaranka Soomaaliland galab kasta ay dheehan jireen wax faras leeg oo marba midab leh oo dhanka laascaanooda galab kasta kaga soo caraabi jiray fadhiisimadii ciidamada qaranka kaasi oo aqoon-yahanada cilmiyada dunubta badan sheegeen inuu ahaa sixirkii ugu adkaa ee qarnigan aynu ku jirno dad Soomaaliyeed adeegsadaan kaasi oo qayb weyn ka qaatay kasoo bixi Soomaaliland ee gooja cadde iyo bariga gobolka Sool reer burco ma sixir kale oo awood weyn ayaa lagu ugaadhsanayaa mise reer burco qudhooda ayaa looxyadii la isku bedeli jiray isku adeegsaday mase kula tahay in dadka dhawaanahana ku soo badanayay burco ee ka imanayay koonfurta Soomaaliya oo saacaday doonaan isbedeli kara inay halis ku yihiin amniga qaranka iyo ka shacabka reer burco dhalinyarada reer burco ee saacadaha dambe ee habeenkii guura bahaleeya oo ugu horeeyo saxafi Maxamed Suute ayaa si weyn uga qayliyay bahal dameer leeg orgigana ka weyn oo habeen kasta surimada madow gelaya waxay sheegeen in waxani saacadu doono qof caadi ah oo meheradaha ka balweeya noqon karo saacada dambe ee habeenkiina uu bahal khatar badan isku bedelayo maalmo ka hor ayay ahayd markii la helay qof uu cunay bahalkani oo macaal u diirtay oo xagtay lafihii marxuumka taasi waxa ka sii horeeyay gabadh sidoo kale uu ku cunay meel u dhow magaalada burco ugu dambeyntii reer burco waxa looga fadhiyaa soo qabashada bahalkan intaanu nafo kale galaafan waxaana hubaal ah in bahalkani maalintii yahay qof caadi ah oo dadka meheradaha kala shaaheeya markuu doonana balweeya qof kasta oo ku sugan burco waa inuu fiiro dheer u yeeshaa qofka ku xiga la socda ama meel ula caraabaya bal inuu isbedelay iyo inuu sidiisii ku hoyday